Air Force One ma aha magac lagu tilmaami karo hal diyaarad oo keli ah. Waxaa magacaasi qaata diyaarad kasta oo ciidamada cirka uu Mareykanku leeyahay oo uu madaxweynaha raaco, waxaana la qiyaasaa in saacad kasta ku baxdo 180,000 ilaa 200,000 oo kun oo dollar. Sharafta diyaaradani xambaarsan tahay waa mid u dhiganta astaanta taalada xorriyadda ee muhiimka u ah dowladda Mareykanka. Waxaa kale loo yaqaanaa Flying White House ama aqalka cad ee duula, taasoo loola jeedo madaxweynaha darteed xilliyada safarka uu ku jiro. Diyaaradda Air Force One waxaa loo naqshadeeyay sida diyaaradaha rakaabka oo kale, laakiin asal ahaan waa diyaarad militari oo awood u leh inay gaashaan u noqoto madaxweynaha si loo ilaaliyo ammaankiisa. Diyaaraddan ayaa ku qalabaysan gantaalo ka hortaga gantaalada balistiga ah. Sidoo kale qolofka sare ee diyaaraddan ayaa kuwa xabaddu aan karin marka lagu daro daaqadaha iyo albaabada diyaaradda ku rakiban. Sidoo kale albaab walba wuxuu leeyahay jaranjaro u gaar ah oo uma baahna in jaranjaro loo soo jiido. Diyaaraddan ayaa markii ugu horeysay howlgashay waqtigii dagaalkii Qaboobaa uu Mareykanku kula jiray Midowgii Sofiyeet, xilligaas oo saraakiisha Mareykanku in la naqshadeeyo diyaarad militari oo una samaysan qaabka diyaaradaha rakaabka ah, taasoo si fudud loo beegsan karin madaxweynaha Mareykanka xilli uu ku guda jiro safaradiisa. Waana sababta loogu sameeyay madaxweynaha diyaaradda nooceedu yahay 747-200 oo ah diyaarad militari oo loogu talagalay inuu isticmaalo madaxweynaha Mareykanka oo ah taliyaha guud ee ciidamada. Madaxweynayaasha Mareykanka xilliyadii hore waxay ku safri jireen tareeno dalka gudihiisa ka shaqeeya, balse dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka, xilli uu socodka dib u furmay, ayaa laga maarmaan noqotay in madaxweynaha Mareykanku uu helo diyaarad militari oo awood u leh ilaalinta ammaankiisa xilliyada uu ku jiro safarada uu dunida ku marayo. Sanadkii 1949 dhexdeedii, diyaaradda C-9 Bharata Express ayaa ahayd diyaaraddii ugu horeysay ee madaxweynaha Mareykanka dalka dibadiisa ugu safro. Markii dambe cillado dhowr ah oo dhanka amniga awgeed ayaa kalifay in gebi ahaanba la beddelo. Kadib waxaa la soo saaray Air Force One C-54 Skymaster oo ahayd diyaaraddii madaxweynihii hore ee Mareykanka Franklin Roosevelt uu soo qaatay shirkii caanka ahaa ee Yalta bishii Febraayo 1945. Sidoo kale madaxweyne Harry Truman ayaa adeegsaday diyaaraddan muddo kooban. Sanadkii 1959 oo ahayd muddo xileedkiisii labaad, madaxweynihii Dwight Eisenhower ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa iibsaday diyaaraddii ugu horeysay ee loo yaqaanay Boeing 707-120 oo naqshadeysay shirkadda diyaaradaha ee Boeing, kadib markii saraakiisha militariga ee u xilsaarnaa sugidda ammaanka madaxweynaha u arkeen in tiknoolajiyadda iyo xawaaraha sare ee diyaaraddani ay ku habboon tahay safarada masaafada dheer ee ilaa dalka dibadiisa. Diyaaraddan Boeing 707 Air Force One waxaa markii ugu horeysay raacay madaxweynaha Eisenhower oo safar ku marayay 11 dal oo Aasiya ka mid ah, ayna duushay masaafada 35,000 kiiloomitir wax ka yar 19 maalmood, taasoo laba jibaar ka xawaaro badisay diyaaradihii hore ee Air Force One. Balse Mrs Kennedy oo ahayd xaaskii hore ee madaxweynaha John F. Kennedy ayaa beddeshay midabada iyo naqshadda diyaaradda oo ay u xilsaartay Raymond Loewy inuu diyaariyo naqshad cusub oo gudaha diyaaradda iyo midabka buluugga ah hadda diyaaraddani leedahay. Diyaaradda Air Force One waxaa ku rakiban qalab badan oo digniin ah, taasoo markii madaxweynaha ku wargelinaysa haddii ay dhacdo masiibo nuclear ah. Sidoo kale waxa ay ka xawaaro sareysaa diyaaradaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahay, maxaa yeelay waxay awood u leedahay in ay duusho masaafo dheer oo gaari karta bilo haddii loo baahdo. Diyaaradda Air Force One ma ahan hal diyaarad oo keli ah ee waa laba diyaaradood, waxayna howlgaleen 1990kii si ay markasta diyaar ugu noqdaan madaxweynaha duruuf kasta oo ku timaada. Diyaaraddani waxay xarunta lis oo gurguurta u tahay madaxweynaha Mareykanku oo uu dalka ka maamuli karo hawada haddii weerar lagu soo qaado. Waxaanoo kale madaxweynaha safarada u weheliya boorso laga maamulo hubka nuclear-ka ah ee uu Mareykanka si uu ugu jawaab celiyo haddii weerar lagu soo qaado dalka inta uu diyaaraddu saaran yahay. Sidoo kale diyaaraddani waxaa ku rakiban qalab isgaarsiineed oo horumarsan,
kaasoo ka hortagi kara falal basaasnimo. Sifooyinkaas waxaa sii dheer in militariga Mareykanku ay diyaaradan ku kordhiyeen 4 matoor oo awood badan si loo kordhiyo fursadaha badbaadada madaxweynaha Mareykanka haddii lala beegsado gantaalo. Madaxweynaha Mareykanka ayaa duulimaadyada gudaha u adeegsada helikobtarada Marine One, kuwaasoo sidoo kale helikobtarada ku qalabaysan yihiin tiknoolajiyadda casriga ah iyo gantaalo difaaca. Waxaa ammaanka helikobtaradan suga in ka badan 800 oo cutub oo ka tirsan ciidanka badda ee Mareykanka. Faa'iidooyinka kale ee diyaaradda Air Force One ay leedahay ayaa ah habka tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta oo tayo sare leh. Sidoo kale diyaaradda oo leh farmashi iyo xarumo caafimaad oo adeeg walba diyaar ku yahay, iyo qaybta qaliinka iyo shaybaarka oo mar walba u taagan u adeegidda madaxweynaha Mareykanka iyo shaqaalaha. Diyaaradda Air Force One waxay qaadi kartaa in ka badan 70 qof, waxaana inta badan ku jira madaxweynaha iyo la taliyayaasha sare marka lagu daro saraakiisha adeegga sirdoonka. Sidoo kale wariyaasha aqalka cad aqoonsiga ka haysta ayaa loo oggolaadaa in diyaaradda ay raacaan ayagoo aad loo baarayo duulimaadka ka hor. Sidoo kale shaqaalaha diyaaradda saaran ayaa ka kooban 26 qofood oo kala ah baaylootka, cunto kariyayaasha iyo martida kale ee loo socda madaxweynaha. Muuqaaladii filimkii Air Force One ee 1997 waxaa lagu soo bandhigay awoodda ay diyaaradani u leedahay in ay hawada shidaal ku qaadato, taasoo ah mid u qalabaysan sida kuwa militariga oo hawada dusheeda ku qaata shidaalka. Ujeedka oo ah in diyaaradana cirka ay ku sii jiri karto waqti badan haddii xaaladda dhulka aysan ammaan ahayn. Xawaaraha ugu badan ee diyaaradani ku socon karto ayaa ku dhow heer guuxeeda ay kaga dheereynayso, kaasoo gaaraya qiyaastii 1000 kiiloomitir saacaddii, iyadoo mid ka mid ah duuliyayaasha diyaaradda dagaalka ee F-16 uu galbinayay diyaaradda Air Force One caasimadda Washington. Kadib dhacdadii 11 Sebtembar 2001 wuxuu ka cawday xawaaraha zaa'idka ah diyaaradda Air Force One, isagoo xusay inuu gaari kari waayay. Sidoo kale diyaaradda Air Force One ayaa ku duuli karta joog sare oo gaaraya 14 kiiloomitir, taasoo aad uga sareysa joogga caadiga ah diyaaradda ganacsiga ee rakaabka qaada. Diyaaradda Air Force One hadda waxa ay jirtaa in ka badan 30 sano. Sidaas darteed waxaa caddaatay in labada diyaaradood ee madaxweynuhu u baahan yahay aalado farsamo oo cusub, waxaana loo qorsheeyay in la beddelo 10 sano ee soo socda. Bishii Abriil sanadkii 2008, shirkadda weyn ee diyaaradaha Mareykanka ee Boeing ayaa ku guuleysatay qandaraas ku kacaya $3.9 bilyan oo lagu beddelayo diyaaradda uu madaxweynuhu isticmaalay ee Air Force One. Mashruucaas ayaa la filayaa in la dhammaystiro sanadkii 2024. Madaxweynihii hore ee Franklin Roosevelt ayaa yegleelay xafiiska militariga ee aqalka cad, waxaana qaybtan u xilsaaran yihiin dayactirka iyo ka shaqeynta diyaaradda Air Force One, iyadoo diyaaradani la siin doono ahmiyad gaar ah maadaama diyaaradani gacanta lagu hayo lana diyaariyo duulimaad kasta ka hor. Air Force One waa diyaarad aad u weyn, waxay dhirir ahaan gaaraysaa 6 biyaano, waxayna ka kooban tahay 3 dabaq. Cabirkeedu waa 400 mitir iskuweer, waxaana ka mid ah xafiiska gaarka ah ee madaxweynaha iyo qolka shirarka lagu qabto iyo goobta jimicsiga loogu talagalay. Waxay kaloo leeyihiin xarun isgaarsiineed 84 goobood oo taleefanadu yaaliin, oo ay 24 yihiin kuwa aad loo adkeeyay. Xaruntan ayaa u qalabaysan sida dayax-gacmeed oo kale, iyadoo dabcan adeegga internetka mar walba la isticmaali karo. Shaqaalaha jikada ee diyaaraddan ka shaqeeya waxay hal mar quudin karaan 100 qof. Qabanqaabadaasna waxaa sameeya cunto kariyayaal militari ah, kuwaasoo diyaariya goobaha laga soo iibinayo adeegga, waxaana loo soo iibiyaa habraac si loo xaqiijiyo ammaanka madaxweynaha. oo waxa la karinayo oo dhamina waa ay bad qabaa. Sidoo kale diyaaraddan ayaa waxa ay leedahay 2 jiko oo u dhameystiran yihiin qalabkooda. Madaxweynihii hore ee Mareykanka John F. Kennedy waxaa lagu taliyaa inuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee ku duula diyaarad si gaar ah loogu talagalay, kadib markii uu la wareegay xafiiska madaxweynaha ee sanadkii 1962.
Isla diyaaradda ayaa meydkiisii lagu soo qaaday kadib markii lagu dilay magaalada Dallas ee gobolka Texas sanadkii 1963, saacado gudahood markii la dilay John F. Kennedy. Kadib markii madaxweyne ku-xigeenka waqtigaas Lyndon Johnson ayaa loo dhaariyay talada dalka, isagoo saaran diyaaradda dusheeda, ayna weheliyaan xaaskii John F. Kennedy iyo waxaa goobjoog ahaa garsoorihii Sarah Hood si ay ugu markhaati kacdo xafladda dhaarinta ka hor inta aan madaxweynaha cusub hawada ku duulin si uu u soo laabto caasimadda Washington ee dalka Mareykanka. Waxaana halkaas noogu eg barnaamijkii aan kaga hadlaynay diyaaraddii Air Force One. Daawade, haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe saar. Haddii aad hore joogtana like saar muuqaalkan. Wixii fikrad iyo ira ahna qaybta commentiga noogu reeb.